malikul mawd ku noqday sida taariikhdu hadhowto ay qori doonto garashadu hadday waxaan u soo gelaynaa bal hadda ninka keli taliska la yiraahdo ama dictatorka inuu naqaano sifooyinkiisa oo aad uga muuqday arrimaha aan ka sheekaynayo halganka dhexdiisa garashadu hadday ruux la tahay suu garanayo garaadkiisu suu qabo haddii loola garan waayo gardaruu u qaataa ninkii yidhi garaadkiisi xaajadu markay gobo'da iyo gawda culus joogto keligii ninkaa shaantay uu gola ka fuulaa adiga waxa lagu yaqaanaa ninka keli taliska ah maalinta arrintu halka ugu culus ugu halisaysan marayso ee ay ahayd inta la isu yimaado in la faaqido oo la faguro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisanaya marka soo waxba hadlina soo arrinta tan iyo ka hadalkeedii xalkeeda ma aha sida iyo sidaas gola ka fuulka waxa la yiraahdaa waa adigoo imika xaashi halka iska fadhiya leedo waxa lagu xukumay inaad imika gabay tiriso aad imika alifto dabadeedna waxa ka soo dhiiqay uu yiraahdaa waa waxaan xur yeelanay waa nin cunaa la qabtay ama sida yeelama sida yeeliyo wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan keli taliska waxa lagu yaqaanaa had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aan laga fakirin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo dhimay wuxuu yiraahdaa si fududo maaragtay hadhowna isbixin weyda mugti xaajadu markay gobo'da iyo gawda culus joogto keligii nin gaashaantay uu gola ka fuula si fudud buu isaga yiraahdaa talada hadalka uu yiraahdaa gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya keli taliska nin ma ogolan yiraahdo waynu gudboonahay aan iska barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uu ka maqlayaa laakiin ma ogola dhinacan iyo dhinacan cid barbartimaata gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelayaay arrin lalama guule ee warkuu gura yiraahdaay dadka wuxuu u gacan haadiyaa qof iyo gaarkiisi gogol wuu ku shaashoonayaa loo gudboon yahay gendi iyo dhukaan buu qabaa cudurro guumeede sida goray fallaagoobay buu gooni joog yahay kol hadduu nin mawd lagu gudbaday tiisa uga guuro xil uunbuu guddoontee ka baydh gudashadiisii seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabi afrika waxay ku cuntahay marka ninkii taga ee xididayste ee meel walba haddii ilaahay ka dhigo maaragtay oo haddii ilaahay ka dhigo lug gashado ay ruuxruuxidiisa iyo gilgilidiisu adkaato markaasuunbay isku waafaqdaa inuu xun yahay intaa uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududahay waxyeelidiisa iyo rididiisa intuba heshiiskuma aho inta iyadu murmayse midna leeyahay waa wanaagsan midna leeyahay waa xun yahay ayuu jiidanayaa tegayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aad u adag tahay ayaa la isku raacayaa inuu ninku khariban yahay seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabiye gaarayuunkii nin hadduu tashiga guuta faran kari ganaanaysto inteenan maanta halkan fadhido oo talo wada leh oo la yiraahdo talada ummadda intiinaasaa wadaaga bal ka warrama waan idhaahdo haddaba intiinu iska hurda taga oo intii laynoo wada diray anaa ku filane waa mahadsantihiin aniga uniga warsuga nin hadduu tashiga guuta faran keli ganaanaysto gaarayuunki iyo shinnida guruuciya dhaadheerta giryaalayaashiyo fulaha laguma guuraanka gumarta iyo maajeenta iyo geedxunka iyo tuugga gungunaafka iyo maarta iyo gocorka aan quudhin ku ninoo guraangura hadduu goob isugu keeno guufkiiyo haddii hooda iyo giniga loo qaybsho dadka kale intii gudan haddii gararhka loo jiido gubaabadeedii haddii loogu godadleeyo hadallada galoofta ah haddii loogu malagaaxsho gurya noqoshadeedii haddii lagu gawaan raacsho gabaldayo sidiisii hadday laba gardaymooto shimbiraha gabraatiya hadday galow wax weydiiso kol hadday galaydh soo kallahay laabta uga guuxdo garbaraar cadhaysanay hadduu gooyo taladeeda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin waxaa lagu yaqaanaa keli taliska ummadda markuu dhex galo ishuu saa u mariyaado inta aan hadalkiisa waxba ka soo celinin inta markuu hadlayo hoos wax u eegaysa inta ama hunguri ama kursi ama magac u xilanaysa darajo intaasunbuu xilka u dhiibtaa intaasuu urursadaa dabadeedna inta wax garatana
xarigun baa loo jiidaa intaasoo baa daba yaacda uun xaqiiqa iyo wax dhacay oo maaragtay dee jiro ruun aan arkay baa ilaa maxamed siyaad barre ka shalay jirana uu gabaygu ku saabsan yahay mid maanta jirana uu ku saabsan yahay bacdi waxa weeye sifu ma ficilun buu gabaygu ka hadlayaa qof hebel la yidhaahdo ka hadli waa ficilka wixii la yimaado uun buu ayuu ku saabsan yahay dabadeedna intaa markuu sameeyo dadka marba intuu shiriya uun buu si yaroo fudud wax ugu sheegaya waayo wuxuu yaqaanaa goldalooladeeda oo si yaroo fudud buu u qancinaya wuxuu leeyahay oo ma ogtihiin sidaa iyo sidaas baynu samaynaynaa beritoyna haddii laakiin halkaa ka dusaynaa dabeetana halkii baynu gelayna dabeetana waa khalaas berito markay beenowdana wuxuu leeyahay waan yeeli lahaay sow hebel iyo hebel iyo hebel sow kuwani ima haystaan faraqa iyo dacalada iyo dhinacoo kama aan dhaqaaqi waayin maalinba shanta uu isirado waxbay karteen ayuubuu dadka ku reebaya dadkiina kuwii bay ku jeesanaya ilaa wuu garanayaa inay ku jeesanayaanu iyagu ma qiimayn karaan yaa qaldan iyo xaggu qaladku ka jiraa intaa laysku jeedaabuu isagiina maaragta ayuu dhaqaaqayaa guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin waa la isweydiin karaa wax la odhan geeyada bixin maxay ahayd geeyada bixin waxaa la yidhaha waxaa jira ceel la odhan jiray waxaa jira ceel la yidhahdo bixin bixinadu weliba way badan yihiin kay tahay anigu qudhaydu ma aqaano laakiin waxaan uun maqli jiray geeya ceelkaa bixin joogi jirtay baa la yidhi waa la yimaadaa waa laga cabaa geeyadii baa meesha darkii bay ceelkay dul joogtaa waa laga tagaa kalka dambaa la soo noqdaa waa geeyadiioo halkii iska joogta haddana waa la tagaa waa la soo noqdaa berigaa farduu qimay lahaydoo waa lagu dagaalgeli jiray oo dee may maqnaan jirinoo nin kalihi waxay ugu jiri jirtay dee waxay u joogi jirtay guriga ama meelaan ka fogeyn uun ka warhayn jiray markaas dabadeetna markii kal kasta loogu yimaado geeyadii oo halkii iska joogta halhays baa soo baxay la odhanayo war geeyadu sooma cabto oo ceelka kama tagto oo colaad laguma tibo yacni ninkii lahaa war xitaa miyaanay colaadi ka dhicin ciddii lahayd miyaanay dagaal gelinoo aanu dabeeto u baahan geeyadan inuu maaragtay dagaalka u fuulo dabadeedna waxaa ummaddii unbaa la leeyahay mar haddii taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo sidaa loo gado ay iyadu maaragtay qiimayn kari weydo xaaladda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin weligeed fal baa loo guntaa yani uun iminkana waa dhaliishii dadka dhaliil maaha runtii waa halka ay taagan tahay yani aqoon iyo aragti iyo siyaasad iyo mid walba ummaddu dee caawa kuma dhaliila halkay joogto waa garaadkeeda waxa weeyaan dee dee waa si yar baa loo khiyaamaynayaao kuma dhaliilo oo ila cidina waxba uma sheegin intii wax u sheegi lahayd waa ninkii ka sheekaynayay oo waa intaa indhaha ka ridaysay laakiin waa sidan dabeecaddeedu weligeed fal baa loo guntaa lagu guhaamayey marunbay gadoodaa siday gees lo-aa tahaye galab xiisaheedaa wakhtigu kaga gaboobaayey ninuunbaa ku guuree iyada geediwoo weliye marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yidhaahdaaye markay raar guraysaba ninbay gudub tidhaahdaaye waa sidaasoo waxaa looga bartay hadiyo goor innaga ayaa guusheenna waxay iyo guuldarradeenna meel qaladay saaran tahay waxaa dhacay hebel baxaashi baa ka mas-uula laakiin haddii uu abubakar yimaado waxaas dhacay waxaa daweyn kara abubakar uu yimaada hadda waxaa la doonayaa waa waajib gobannimo moogta dabeetna xaashi baa la riixayaa marka uu dee dhammayste ee uu dhaawaca geysto abubakar baa la keenaya waxa abubakarna markaasaa la odhanayaa dee waa kuwaas mar haddii abubakar yimi kun fa yakuun iminka haddii ilaahay ka dhigo maaragta markaasna waliba intuu barkintiisa qaato seexanaya oo abubakar baa dadka guriga geynayo ku filan hawshii ummaddu laga sugayey waa dee dabeedna markaasuu isagiina isu qaadanaya markaasuu leeyahay waayay isugo isagu dee inuu isbeeniyo ma doonayo isle dadka kuwa saasuu ku arkane malaa adaan isoqoonne waa niyo malaa ninkaasaa tahay oo maaragtay markaasuu isaguna wax culus aanu qaadi karin buur culus iyo mas-uuliyad culus oo aanu qaadi karin buu markaa waad arkaysa inuu la liito oo la gurguray haddana markaasuu odhanaya iska dhigaya markaad eegto iska dhigaya sidii nin la ordaya ma og tahay oo isaga waxaa ku ceeba inuu yidhahdo war waxaan anigu keligay kama soo bixi kare ee maaragtay u yeedha maaragtay oo isaguna wuxuu isleeyayaan maaragtay marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geeyeen marka mid cadaabo ayay warkani waa khayrlaawe ee mid jannada toos inoo geeya janno toos loo tagaana dee ma jirto ilaa aad cadaabta sii marto jannadu waxay ka dambaysaa had iyo goor cadaabta moogta marka qolyadani waxay ku leedahay waxaan doonaya inaanu duullo oo aanu jannadii toosun ugu degno markaa nin nala duula yaanu u baahannahay dee kaana la heli maayo
dabeetana xaasha wiiman waxa jannada ma geynaysaa haa buu odhanaya marka salaam buu ka dhiganaya intuu iyagii saa isu dul saaro ayuu jannadii isugu ku boodaya marka sidoo odhanaya inta kale waa idinkaa marka wiil ku guro naarta iyo godadka yahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasho goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yidhaahdaaye markay raar guraysaba ninbay gudub tidhaahdaaye gabna ugubi way quusisaa gaawe cumarow garabdaar ninkii lagu buqraa geedad tare waab mar haddii ay dhacdo nin aan waxba la iman haddii layska caleema saaro ilaa dadka waxaa wax lagu siiyaa wuxuu la yimi oo la yidhahdo xalay baan riyoodayoo ninka guusheennu ku jirtaa waa xaashi yaa dabeeto aroortii markaa tirada hawshii ka warran isagu riyaaba kuula baydhayaaba dee waajibba ka hadli maayo wuxuu isu qaadanayaa uu weli ilaa waa nin xalayto loo riya meesha ku yimi waa ta ka dhacda arrimo dee maamul iyo siyaasad iyo hawl u baahan ayaa la odhanaya wallaahi haddii hebel iman lahaa inaanay waxaas haddii ilahay ka dhigo maaragta dabeetana isagii baa imanayo ilaa sidani nolosha kama suurowdee markaasoo dabeedna ayaan darradii maysaado maaragtay saasuu leeyahy garabdaar ninkii lagu buqraa geedad sare waab meelaa loo diran iyo carshi iyo waxbuu ka sheekaynayaa iyo riyo iyo dee hawl cid kale qaabilsan tahay garabdaar ninkii lagu buqraa geedad sare waabiye garmaqaatayaashiiyo dadkaa beera ruux guran halkan baydkaasuun baan doonayaa inaan sheego ummad yahay inagaa dictatorka abuura inagaa abuura dictatorka iyo kalitaliska inagaa samayna markaynu samayno ee qalabayno ee hubayno ee u dhammayno ee uu dabeedna isagoo galka seefta kala baxo ee uu wax gumaaday cagta wax mariyo aynu hadhowta calaa allah somaad arkin waa loo sacabinayaa waa loo mashxaradayaa iyadoo uu qaldan yahay baa lagu raacayaa iyadoo uu qaldan yahay baa la difaacayaa iyadoo uu qaldan yahay baa loo hiilinayaa markaasuu marka wax walba yidhahda cid tiraahda maya uu arki waayo ayuu isaguna markaa waxaanu ahayn ayuu isu qaadanaya qofka haddii aanad xarig qabta haddaanu qofka jirin ee la yidhahdo mar walba sax baa tahay isaga qudhiisu xaqiiqadiisii wuu ka tegayaa wuxuu odhanayaa wuu soconayaa markaa ha la ogaado dictatorka ninka la yidhahdo haddii god bani aadamka abuura moogti inagaa qalabayna ninkan inagaa gacan ku siina inuu xarkaha goosto garmaqaatayaashiiyo dadkaa beera ruux gurane gambo niman la soo bixin haddii guula lagu waabo markuu dhaawaca geystaba haddii loo gargarateeyo isagoo canaan lagu gudbiyo gaaran filanaya giblo iyo haddii sacaba lulan loogu gola xaadho keligii inuu guurti yahay maalintaa gunud isagoo dhaawacii ugu weynaa geystay oo isla talo maanta maxaa lagu odhan doona ma intaasaa lagu jari ma maxkamad baa lagu taagi miyaa lagu casili oo uu yimaado mise waaba la sacabinaya walaa xawla walaa quwata illaa billahi markaasuu odhanaya war waxani waa adhi wax meesha wax garanayaba ilaa hadday wax garanayaan way ku qaban lahaayeen ilaa way arkayaan inaad khaldan tahay yani siduu isagu u fakeraya waa caynkaaba ogti gible iyo haddii sacabalula loogu gola xaadho keligii inuu guurti yahay inuu keligii wax bani aadam oo jira inuu isagu keligii yahay oo inta kale aanay macno lahayn ilaa hadday macno leedahay uun macnihii way odhan lahayd ood qaldan tahay keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudii marka uu gadaan iyo gadaan gacan togaaleeyo ayuunbuu waxaan ganac lahayn sii gorgoriya marka leedo madaxweynaad ee uu kii xaashiyo madaxweyne ku-xigeena ku darsado ee kii riiraasho wasiira ku darsado ee kii gaariyo oo agaasimo ama directeer baa male halkan laga yidhaahdaa oo ku darsado ee la odhan waayo dee kaagii ku ekow oo kuwan kale iska daa maalinta dambuu ku odhanayaa baabuurka baxaya amarkiisa ee xaabada doonaya waa in aniga la iga fasax qaataa ya bani aadamka xad celiyaa macnihii waxa weeyaan dictatorka ma jiro marka uu gadaan iyo gadaan gacan togaale meel walba ku farageliyo ee laga qaban waayo ayuunbuu waxaan ganac lahayn sii gorgoriyaay kol hadduu tallaabada gurguro gaatan iyo boodo dhaxaa gadaal laysla tebi wiil galbaday jeer mar hadduu tallaabada gurguro oo inta laysku jeedo ama la hurdo uu maaragtay orodka hoosta ka xado maruu dhamcay oo tegay oo jiitay buunbaa lay odhanaya war ninkii horta mee baladba sheeg toojaba waxaa lagu godlaa say u gaar tahaye gurranidu mar waa dhalasho iyo gacanba qaabkeed marna waa calool garac sida iyo xaalku soo gala kol haddaanay maankaaga gadin
talana kaa geynin guracnaanta qiil lagu saxo loo gudbaa jira nin hadduu go'aanka iyo sharciga gowrac ugu jiido hadba goondhabaaliyo hadduu goodi furan keeno gacalnimo ha loo yidhi hadduu gubasho sii beero guudaan haddii uu ku liqo ereyga geedaysan runta wuxuu u guulguulayaa way gundheer tahay goldaloolo qura maaha iyo goonidaa taliye gedaan loo filayn baa jirtaiyo geelladaaq kale ninkanoo aynu caleemasaaradoo doorannay laakiin aynu u naqaano inuu guracan yahay nin mar haddii uu u dhashay guracnaanta oo aanay wuxuu hooseeyo kale jirin si loo saxo iyo si loola socdo lama waayo waayo waad ku talagelaysa xaashi anaa aqaano wuxuu doonayaa un sidaa iyo sidaa loola hadlo sidaa iyo sidaa la yeelo sidaasaa loo wadaa sidaasaa wax loo dhacsiiyaa yani waa la yaqaanaa hal baaba soomaalidu tidhi toojaba nin lehi toojo nin lehi toojo nin lehbaa toojo yani toojo nin lehi baa tabuu ku maalo yani ninkaas baa u yaqaan hal baa laga maarbo hal baa mahmaahda ku jirta odhanaysa hadday tahay toojo tahay oo ay cararto aanay maaragtay dee aanay ogolayn in la maalo nin kale hunbaa yaqaana sida loo liso wuxuu u raadinayaa si uu ku maalo isagunbaa markaa helaya siduu ku maali lahaa waana la yaqaan waanu maalaa qofkuna halkama liito weligiiba ha gurraacnaado haddii aanay wax u sheellayn u qarsoonayn si loola socdo lama waayo laakiin ayaan darradu waxay ka dhacaysaa marka gurraacnaantiisu aanay dhalasho ahayn ee laakiin xeelado u hooseeya oo aanad adigu la ogeyn ay jiraan aanu daacad ka ahayn arrintan uu wado iyo xilkan uu hayo isagoo runta arkaya oo danta arkaya uu markaad hadasho adigoo balhadaraalliga xaasha walaal waxaan doonay cadho ka sii qaado waayo dee waa halkan inagu ereygan reer magaalka ku nool kiisiska waalka wuu garanayaa danta laakiin wuu isdhaga maraya mogti marka nin hadduu falkaa ku dhaqmo maaha waxaan wax kale uma jeedo oo gurraacnaantii u dhashay way ka weyn tahay oo baroorta orgiga ka weyne arrin u hoosaysa oo aan weli la garan ayaa jirta dee xaasho nimanka dooranoo la yidhahdo waa xaashow qolo kale ku tirada makhaayadda soo xidh oo dabeetna yidhahdo waan soo xidhaya waa yidhahdo xaashow makhaayadii aynu wadno maxaad ku hadlaysaa buu odhanaya hadda anagu heshiis baanu ku nahay inaan markii hore waxaan ku heshiisanay in la wado laakiin qolo kalaa ku tiri soo xidh dabeetna anigu markaa de hawsha aynu isku ogeyn aynu wadno wuxuu nagada waxaad ku hadlaysaa wadi mayna waynu xidhaynaa yani wax u gaarun baa jira weeye markaas oo tilay ka dhigo talo u go'an isaga u goonayaan adigu la wadaagin ayaa jirta hadba geedismaris baa u hadha guul dad leeyahay miyaan geedi baabo warladu gelina waayeyni gole miigan geed sheegan iyo garangar muunaysan gudban iyo cod laba geesa iyo guurti kala soorta garnaqsiga mudicigoo tashiga gooni uga showray geda labe madaacalay hadloo dhaabadba aan geystay kala gurasho meertiyo rogaal la isla guurguuray maahmaaho wada guunah iyo gabayo raacraacay guddoon dhacay hubaal iyo go'aan la ysku gacan qaaday 5 godoo murtidu leedahay iyo gororka suugaanta gedda hadalka loo ruga gasho iyo marin gobaadeed gobannimadu waa libin ku taxan geedi nololeed waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn gedun buu ka leeyahay khalqigu maalintuu gado guddoonkeedu waa faral siyaa loo gafaajirine marka uu gabaabsiyo xilliga laga guweynaaday ayuunbaa ninkii gudan karaa dhan ugu guura gobannimadu wax kale maaha waxa weeyaan waa geedi ka mid ah geediyaasha nolosha oo marka hankuna ka weynaado baahiduna ay ka badato habkii markii hore loo dhaqnaa ama kooxo ama qabiilo ama kuwa ka dambeeya iyo gumaysiga marka ay noloshu sidaa isku bixin weydo ee qofkuna ka han weynaadee ka garaad sarreeyo habkaa nololeed ayuunbaa kan kale ee gobannimada ah loo guuraa dabadeedna maalinta loo guuray ee lagu dagaalamay ee nafta loo huro dee bani aadamku ujeedu ka leeyahay inuu ku dhaqmo u raadinaya ma caabudayo moogti mana aha haddii ilaahay ka dhigo sawir intuu isoo dhigo sidaa u daawanayo inuu ku dararayaan ujeedu gadashadeeda iyo inuu wixii ay u baahan tahay ku iibiyo ujeedu ka leeyahay